بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. marka hore ka dowladda ahaan ka madaxweyne ahaan aad iyo aad ayaan uga xumahay wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka caasimadda degan qulubtooda iyo dhagahooda iyo indhahooda iyo khalqal gelinayo. marka xiga waa la og yahay muddadii 4 sano ahayd ee la soo dhaafay magaaladan xagga amniga wixii laga qabtay dadaaladii laga sameeyey horumarka laga sameeyey ma dhicin in uu qof Soomaali ah oo dhibaato ka soo gaarto nasiib darro dhaqan horay Soomaalida oo laga soo guuray oo ahaa in siyaasadda lagu raadiyo xoog ayaa niman saaxiibadeena ay isku dayeen in badan ka hor joognay ka waaninayna ka celinayna online war siyaasadda daarabtaan miiska soo fariista aan ka wada hadalno annagoo mabaadida ama aragtida aan ku wada hadlaynahay ay tahay ama xayndaabka dhexdiisa aan ku wada hadlaynahay uu yahay Soomaaliya danaheeda siday hore ugu soo lahayd meesha ay joogtay uga sii dhaqaaqi lahayd ma raba details inaan galo laakiin nimanka ay annaga waxaan isku haysano oo ku kala duwanahay aragti siyaasadeed maaha Soomaaliya hore ha u socoto horumar ha samayso dhinaca siyaasadda ah dhinaca dimuqraadiyadda ah dhinaca amniga ah nasiib darro nimankaasi waa diideen arrintaas waxay ku adkaysteen Soomaaliya meesha ay joogto dastuurka ku meel gaar ha ahaado doorashadu mid dadban ha ahaato maxaan ku dalka xisbiyaanu yeelanin siyaasadda ha qofaysnaato oo siyaasadda yaanu institution siyaasadeed dhexdooda yaanu siyaasadda dalka lagu maamulin inahaasna dee inta goor ka soo kulannay ka soo fariisanay ka soo shirnay qaarkood meel fog iyo dibadda ay wajira ka marti qaadnay ka keenay waad garanaysaan 2023 ilaa maanta nimankaas mucaaradka inay yihiin sheeganayo waxaan ka weynay in ay noo keenaan aragti siyaasadeed oo aan ka doodno waxa ay rabaan Soomaalida ay arkaan sida ay rabaan Soomaalidaas quruxda badan ay arkaan lagu gaarayo in ay marna soo miiska soo saaraan waxaan ahayn waan diidanahay ma ogolin waa ka soo horjeednaa muxuu ahay waqtigeedii lama gaarin lama yeeli karo lagama waxayn karo marka tanati ugu horeysa ma aha saadigu sheegtay unfortunately waa siyaasadii laakiin nimankan shalay marka cunaqabateynta la qaadayo waxay la cunaqabateyntii aan la qaadin waa islaynayna huwa dalka ku soo qulqulayo maalintii deynta la cafinayo waxa maya deynta yaan la cafinin dowladana deyn badan ay qaadanay dalka ay muxuu deyn gelinay hadda markii aan isku nimadeynay warqada dhaadheer oo qoran cid kasta oo Soomaali kaalmeynaysa in kaalmeeyaan la siin Soomaali on the record waa qoran tahay waa la garanaya official World Bank warqada u qorayna la yaqaana meel walba marka nimanka saaxiibaday ah hal ciladay qabaan waana ka waaninay waana ka waansoobi waayeen siyaasadda qofaysan iska dhaafa qof aniga nin la yiraaho kaligiisa institution aan ogoleen yani xataa urur aan ogoleen wax ka dhaxeeya nimankaas oo ay leeyihiin oo institution siyaasadeed ah oo responsibility lagu qaaday adduunyada waxaa lagu hadlaa hadday private tahay hadday public tahayba waxaa doodaa ee isqabsadaa waa inay noqdaan legal entity shakhsiyad qanuuniya waa inay jirtaa oo lagu xisaabtamo asal dad ku xisaabtamo unfortunately marka waxaan ka dhaadhicin war marka institution noqotaan oo xisbi noqotaan codkiina xoog u yeelana kor u kaco cod sharciyeysan heli laakiin jaziiran fadhiyaan ka qayliya ba ka dhaha sharcidna ku siimayso codna ku siimayso marka waa niman fahmi waaye siyaasadda kaliya ma diidana talaabo kasto dalkan hore loogu qaaday diidayeen magaaladan argixisa lagala diriraa waa la nidaaminaa meelay ku dhuntaan la baabi'ina magaalada dib u habeynaa lagu soo diila ma ogola hal wax ay ogol yihiin nimankaas caawa hadda aad soo heshaan oo aan diidmo marka nimanka maalin dhoweed marka wixii dhacay waxay ahayd nimankii waray joogtay jaziiray joogtay wada hadal aan sugna madaxtooyadan ku shirnay dibaddan ku shirnay guryahoodan ugu tagnay meel kastaan waxaynay maalin dhoweed qoryo inta soo qaateen iyo wiilal yaryar oo Soomaali ah soo habaabeenay jid soo istaageen xaafadahan waa intaan degnay xaggan go'san magaaladii in la kala googooyo oo dhaqankii aan ka nimid oo qadka cagaaran ee jiniga ah yani shalay waxba dhacay yani sanado hore waxba dhacay wixii shalay dhacay inaan wax ka barano oo aan u noqonin wixii khaldamay wixii saxsanayna
aan sii xoojino nimankaas saaxiibadeena marka maalintooda wixii dhacay waxaasay ahaayeen waana ka xunnahay dadka soomaaliyeed inay cabsi iyo khalqal u galo dhibaatada sida oo saxaafadda qaarkeed ama hay-adaha ajnabiga qaarkood ay u macneeyeen ama dhibaatada ay sheegeen ma dhammayn dhimasho iyo dhaawac iyo barakaca la sheegay ma jirin saacado koobanna way ahayd dowladduna waxay soo celisay muxuu ahaay amnigii iyo kala dambeyntii magaalada waana ilaalinaynaa amniga magaaladan compromise ma laga galayo tanasul laga samayn maayo qof lagu raalli garay maayo koox lagu raalli garay maayo amniga dadka soomaalida iskale qiimo badanoo ugu fadhiya wiilal badanoo soomaaliyada ku dhammaaday hanti badanoo soomaaliyada ku baxday magaaladan inay amniga maanta ay tahay ahaato marka qof laga aqbali karo inuu isagu dana shaksi ah weliba xataa oo aan ahayn institutiona iyo hay-ad la garanayo oo u burburiyo ama u foolxumeeyo ma jirto marka wixii maalin dhawaa dhacay waxaasay ahaayeen waana rajaynaynaa inaanay soo noqonin war saxaafadeedkii soo baxay dowladda ay soo saartay markii dhacdadaas ay soo gabagabowday dowladda waxay ku xustay in cadow dibadda ah iyo mid gudaha ah ay ku lug leeyihiin ma ognahay cadowgaas waxyaaba qaarkood in hadda saxaafadda laga sheego muhiim ma aha laakiin waxaan rabnaa haddana hadalkaygan waa ku jirto waa ku celinayaa nimankaasi mar walba fariin ajnabigu leeyahay diraan waxay ka shaqeeyaan 36 sano soomaaliya meesha macno la-aan uma joogin annaga qaabdaradeenna iyo heshiisyaradeenna iyo maxaanku irahda tanasulyaradeena horta ha ahaato bayska ama sababta ugu weyn laakiin dana shisheeye oo soomaaliya meesha in lagu haayo rabaa ayaa jira waa wadnaa baaritaano waaweynaa noo socdo maalinteedan soo bandhigi doonaa iyaga iyo dadka u shaqeeya gudaha joogaba mudan madaxweyne mucaaradka fariintaas ka duwanay nala wadaageen oo ah inay mudaharaad nabadeed rabeen inay sameeyaan ka hadlaan arrimo doorashada la xiriira dowladduna inay iyada weerartay eedayntaas maxaa ka leedahay horta dee mudaharaadku waa arrin dastuuri ah dowladduna si caday u sheegtay inay mudaharaad banaanbax dadku ra'yigooda ay ku cabirayaan inay ogoshahay laakiin war waa meeshiisa laakiin wixii dhacay oo fakti xaqiiqa ah oo muuqday oo shaarica ka dhacayna waa meeshooda maalin dhaweyd waad ogtihiin maxaa laamiyaraha zoobe iyo agagaarkiisa banaanbaxa lagu samayna hadiiri wixiisay muuqaalkay ahaayeen waad aragteen dadka banaanbaxayay iyo askarta qoryaha sidata ilaalinaysay askarta qoryaha sidataa badneed askarta meesha lagu rigeeyey oo laga soo amray oo ay ka soo baxeenna dowladdu way ogtahay ayadoo oo caddaymo cadcad leh ayaana loo hayaa maalinteedana lagu soo dacweyn doona dadkii ka dambeeyey inay sameeyaan meesha maalintaas waxaa yiilay 4 masawir oo xasan sheekh oo la qalqalloociye ah in qoryadaba miishaaraa lagu ilaaliyo foolxumada xasan sheekh miyaa mudaaharaad dimuqraadi ah meeshaas mudaaharaad kama jirin fawdo bilowgeeday ahayd hantida dadka amniga helay ee bannaanka soo wada dhigtay waxooda in la carqaladeyo la dhaco la boobay ahayd waana ka diidnay haddana haddii sidoo kale kula soo noqoto qoryo la soo baxa waa diidaynaa dowladdu way hor istaagaysaa madaxweyne qaybtii hore su-aasha markaad ka jawaabaysay waxaad sheegtay inay dadkaas aysan lahayn axsaab iyo mar aan weydiinay nimanka mucaaradka laftigooda oo dawan ka hadlay maxaad leysan u qaadan weyseen ood siyaasadda in laga qayb qaato lama maarisay waxay u baahan tahay in leysan loo qaato ayada laftigeeda oo isu diiwaan gelin weyseeno guddiga waxay dhahaan annagana lagalama tashan guddiga marka la sameynayo talada iyo input kumaanaan lahayn sharciyada la sameeyo oo dhan waxay ahaayeen wax waqti kooban lagu sameeyey wax aan loo silnayn guddiga iyo hawshiisa iyo shaqadiisa marka mashruuc aanan dadka soomaaliyeed aysan shaqaba ku lahayn iyo siyaasiyiintiisa aysan shaqaba ku lahayn sidee baan uga qayb qaadanayna ay yidhahdeen arrimahaas maxaad uga jawaabaysaa meeshaas waxaan rabaa markale inaan ku celiyo dalku dowladuu leeyahay dowlad inqilaab iyo xoog military ku qabsata maahane dowlad dadka soomaaliyeed doorteen ayuu leeyahay dastuurku meel gaarana dalku waa lahaa markii hore
dastuurkaas ku meel gaarka iyo heshiiska soomaalidu ay ku heshiisay qaabaa jira dowladnimada in loo maareeyo ah. institutions dowladnimaa jiro, waajibaad cadcad ay leeyihiin, iyo mid walba roolka uu ku leeyahay dowladnimada iyo dowlad dhiska. meel ay uga jirto nin bannaanka taagan oo muwaadin soomaaliyeed ah ayaa veto power leh oo hay-adaha dowladda waxay sameeyaan hor istaagi kara ma jirto. nimankiina qaarkood baarlamaankay ku jiraan, baarlamaanka dhexdiisa intay ka istaageenay dood ka geysteen, dooddoodii mugay weliba taageero u heleen oo ra'yigii ay wateen baarlamaanka intiisa badan inta qaata la yidhi hala bedelo hala yeelo, haddana bannaanka inta soo istaageenay diideen. ay yidhaahdeen maya. shalana ayadoo on the record horta number 1 ka soo bilow maalintii murashaxiinta aan ahaynay ballanqaadan ummadda u soo bilay manifesto aan lahayn waa qoran tahay. baarlamaanka hortiisaan soo istaagnay, nin walba haddii la i doorto 1 2 3 4 samayna yuu meesha ka dhahay. anigaa la i doortay maalintii waxaan ballan qaadayaan horta aniga daba taagana ummadda soomaaliyed u ballan qaaday, baarlamaanka hortiisana ka ballan qaaday. nimankaasina maalintii waxay i ballan qaadeen ayay diidan yihiin, waana record, waa qoran tahay, waa sawiran tahay, waa duubanta. institution xisbiye siyaasadeed oo register garaysan maaha, bulsho rayid oo ururo bulsho rayideed oo register garaysan maaha. yay yihiin dadka saas ku doodayo. aniga nin dhahayaa malaayiin soomaaliya ayaa dastuurka iyo xeerarka lagala soo tashaday. xeer samayntuna habraacay leedahay. xeer dalkan mugu loo dejinaya loo dejiyo. constitutionka dib eegisiisa waxay leedahay habraacay leedahay loo maro. haddee nin habraaci la maraayo iyo janalkii sharciyadda ahay bannaankiisa taagan, sidee muxuu ahaaye loo waxeeya? soomaaliya way ka timiday, horey uga soo martay maalintii aan waxba jirin oo war yaa hadlaya, yaa xagga taagan, yaa ra'yi duurka dadka laga soo aruurinaya way ka baxday. maanta institutions ay leedahay. institutionska raggaas bannaanka taagan qaarkood ka mid yihiin ma rabaan. waxay institutionka hor sheegeen inay diidan yihiin, waxay hore dadku ballan qaadan inay diidan yihiin. maxaa intaasoo dhan dheer waxaanaan rabnaa ma ka haysaan? doorasho noocaan ahaan rabnaa, guddi doorasho noocaan ahaan rabnaa, articalkan oo xy la yiraahdo oo dastuurka ka mid ah ayaan saan ka qabnaa. xeerka meeshaan uu ka liitaa, meeshaan uu ka fiican yahay. xeer ma jiro, guddi ma jiro, dastuur ma jiro. waxaan ahayn annaga kuma hayno nimankaas. hadda taasna soomaali ma dhaqdo.